بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ولا ليال إلهي بمهد سبحانه وتعالى. آية القرآن إلهي وحكيري: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. aayadda wanaagsan ayaan rabay in yar inaan isku iftiimino. Adduunka cilmiyada ugu adag waxaa ka mid ah cilmiga la yiraahdo almanhajiya ama la methodology. Waxaan ka wadnaa adiga markaad doonto arrin adag oo dhib badan oo dadka cilmigooda ka maqan markaad doonto inaad soo dhaweyso. waa cilmi, waa aqoon dadka fahamkooga uu ka fog yahay, uu ka durugsan yahay. waxaad rabtaa inaad u soo dhaweyso fahamkoogaad rabtaa. si aad fahamkooga ugu soo dhaweyso arrinka dadka dariiq gaaban oo sahlan oo dhib yar waqti badan aan kaa qaadanaynin waa inaad martid. si dadkaad ugu soo dhaweyso fahamkooga dee waxaad rabto inaad u soo dhaweyso. waxay yiraahdaan waa almanhajiya ama la methodology. dariiqa aad marayso si aad dadka waxa u gaarsiiso fahamkooda ayaa afka carabiga yiraahdaan almanhajiya, afka faransiiskana la methodology. waxaan uga socdaa hadda basharka nool adduunka 6 milyaar iyo dheeraad. 6 milyaar iyo dheeraad waxaad rabtaa inaad fahanto dadka inta leeg. waxaad rabtaa inaad qaybiso. sideed u qaybinay 6 milyaar in la qaybiyay waa arrin aad u dhib badan yahay. dariiqa aad marayso si aad 6 milyaar u qaybiso oo dadka fahamkooga aad ugu soo dhaweyso 6 milyaar sidee u qaybsami karaan, maxay ka kooban yihiin waa dariiq aad u dhib badan. cilmiga sociologiga marka laga hadlo al-cilm wal-ijtimaaci la sociology cilmiga marka laga hadlo 6 milyaar in si uu loo qaybiyo way dhib badan tahay. laakiin quraanku si yar oo dhib yar buu ugu guuleystay. ilaahi wanaagsan jalla wa ala si dhib yar ayuu ugu guuleystay in 6 milyaar la qaybiyo. dhowr siyaabood buu quraanku dadka u qaybiya. adiga 6 milyaar qaybi way kugu dhib badan tahay waayo manhajiyadii ma haysid, methodology dariiqii lagu qaybinayay inagu ma hayno. laakiin quraanku dhowr siyaabood dhowrkaba uu qaybiya. wuxuu qaybiyaa quraanku wuxuu iska taagaa xagga ideolojiyada. dadku maxay rumaysan yihiin ayuu quraanku iska taagaayo. markuu eegay dadku waxay kala rumaysan yihiin quraanku 6 milyaar wuxuu qaybiyay iyo taariikhda wuxuu qaybiyay 3 qolo. maxaa la yiraahdaa? al-kaafiruun, al-munaafiquun iyo al-muuminuun. waa kuwa ilaahay jiritaankiisa beeniyay, waa kuwa urkugaal ilaahay uurka way ka beeniyeen, caloosha way ka beeniyeen, laakiin afka iyo carabka ilaahay way ka rumeeyeen jalla wa ala. qolada saddexaadna waa al-muuminuun, waa kuwa rumeeyay alla jiritaankiisa iyo alla intii uu ka rabay buu rumeeyay. quraanku manhajiyada dariiqa uu maray, methodology-ga dariiqa uu maray si uu dadka kuugu qaybiyo. marka laga hadlo dadka caalamka maanta degani maxay kala rumaysan yihiin xagga iimaanka iyo ideolojiyada marka laga eego quraanku saddexdaas uu kuugu qaybiyay. marka waa iska easy, waa dhib yartay. hadda waa lagu qaybiyo de waxa dariiq yar oo gaaban buu ilaahi wanaagsan jalla wa ala ayuu u maray si uu dadkii kuugu qaybiyo. quraanku xagga uu ka eegaa maxay la rumaysan yahay. laba, quraanku dariiq kale maraayo wuxuu maraa xagga toosnaashiyaha. dadka marka la qaybiyo miyay toosan yihiin mise ma toosna, ayaan toosnayn. quraanku saddex buu ka dhigaya ayagana: ihdina as-siraata al-mustaqiim siraata alladina ancamta calayhim waa kow, gayri almaqduubi calayhim waa laba, waladdaaliin waa saddex. aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim waladdaaliin. wuxuu quraanku ka eegay dadka ayaa toosan oo ayamaanan toosnayn ayuu quraanku xaggaagu iska taagay. ayaa saxa ayaan saxayn, ayaa jidkii saxda ahaa saaran ayaana saarayn buu quraanku eego. saddex buu ka dhigo waa qolo loo barwaaqeeyey nicmad bay iskaga jiraan. nicmad
dariiqa ay socdaan baa dariiq ilaahay u barwaaqiyay jalla wa ala il se trouve sur la bonne voie jidkii saxda ahaabay ay cagta saareen qolada labaad waa qolo lagu cadhooday ilaahay wanaagsanaa baa ku cadhoodayoo ayagoo wax garanaya lumeen waa dad wax garanaya ilaahay jalla wa ala inuu ilaahay keligii yahay inuu cilmi leeyahay inuu awood leeyahay baa u cad ayagoo aqoon leh ay ilaahay beeniyeen waa kuwa lagu cadhoodayoo ayagoo cilmi labay lumeen waxba yaqaanaan haddana way lumeen saddex walad daaliin waa kuwa iska halaabo ayagoo jaahiliin oo waxba garanaynin bay lumeen oo waxa iskugu beeray jahli iyo kibir baa iskugu beero way lumeen quraanku xaggaana uu iska taago wuxuu dadka adduunka degan uu qaybiyo saddex marka laga eego ayamaha toosan iyo ayamaha toosan aniga waxaan socdaa ayada quraan akhriyay quraanku dhinac saddexaad dadka iska taago wuxuu dadka u qaybiyay ayaa waxtar leh ayaan waxtar lahayn marka laga eego wax qabadka talaabo in la qaado l'efficience l'efficacité marka laga eego wax qabadka iyo kartida iyo hogaanka marka laga eegana quraanku dadka saddex buu qaybiyay waa ayadan akhriyay ilaahay jalla wa ala wuxuu yiri thumma awrasna alkitaba alladina istafayna min ibadina adoomahayga kuwii aan doortay ayaan kitaabka dhaxalsiiyay buu ilaahay jalla wa ala adoomaha saddex loo qaybiyo ilaahay wuxuu yiri faminhum zalimun li nafsihi waxa kamid adoomaha qaar naftooda ku xadgudbay naftooda meel kaga dhaceen ومنهم مقتصد waxa kamid qaar dhaxdhaxaad ومنهم سابق بالخيرات باذن الله waxa kamid qaar khayrka u dheereeyay buu ilaahay jalla wa ala waa saddex category marka category 1 waa maxay les injustes naftoodii bay ku xadgudbeen culimadu maxay yiraahdaan waajibkii ilaahay u saarana lama iman xaaraantiina way ku jiraan maxaa ku xiga ومنهم مقتصد ودحدحاد oo waa maxay xaaraantii way ka tageen waajibkii ilaahay u farayna way la yimaadeen laakiin wax dheeraad kuma biirinin waa dhaxdhaxaad qolada saddexaadna ومنهم سابق بالخيرات باذن الله waa kuwa khayraadka u dheereeyana waa maxay xaaraantii way ka tageen waajibkiina way la yimaadeen maxay ku biiriyeen dadnimay ku biiriyeen dheeraad naftooday dhaafeen xaaskooda iyo badkooda dhaafeen karti bay leeyihiin wax qabad bay leeyihiin way isbalaariyeen oo manaafacaadkooda waxtarkooda waxa ka faa'iideysa basharti aad u tira badan ba ka faa'iideysta ayada quraana marka classification cusub bay sameysay oo dadkii bay miisaantay miisaan waxa saartay xagga wax qabadka oo haddaan si kale u dhigno qolada koobaad maxay noqonayaan faminhum zalimun li nafsihi waa qof aan naftiisana wax ugu filla dadkana wax ugu filla ومنهم مقتصد ودحدحاد وقف نفتيسو wax ugu filan waxtarku naftiisu buu gaaraa bas cid kale ma gaaro qolada saddexaadna waxtarku naftoodana uu gaaraa bulshadana uu gaaraayo bulshadana way gaarsiiyeen walaalayaal waxaan uga socdaa xilliga maanta aan noolahay saddexda qoliyo ayama ugu badan waxa ugu badan dadka naftoodana aan wax ugu filayn dadkana wax ugu filayn baa ugu badan maxaa soo raaca tira ahaan maxaa ku xiga waxa uu ku xiga kuwa naftoodu ku kooban naftoodu wax ugu filan baa ku xiga ayaa tira yar maanta waxa tira yar cid dadkii loo baahnaa oo waayo minhum saabiqu bil khayraati bi idnillah waa kuwa had iyo jeer khayraadka u dheereeyo naftoodiina way ka adkaadeen reerahoodii ubadkoogiina way hagaajiyeen oo way u wanaagsan oo fiican yihiin khayrkoogii iyo wanaagooduna basharkii buu gaaray lambarka maanta aan u baahanahay maanta lambarkaan u baahanahay maanta waa lambarka saddexaad waxaan u baahanahay dad ayagu naftoodii wax u qabsaday reerahoodii ka soo baxay nin reerkiisii ka soo baxay haweeney reerkeedii ka soo baxday ubadkeedii ka soo baxay ubadkiisii ka soo baxay jaarkii ka soo baxay xaafadii u deganaa ka soo baxay magaaladii ka soo baxay qof waxaan u baahanahay maanta lambarka saddexaad oo saacada la joogo adduunku wareersan yahay wadankeenu wareersan yahay ee maanta lacag la'aan leeyahay ee lacagtii umada la boobayo ee weliba la rabo lacagtii umada in la sii boobo xilliga waxaan u baahnayn lacagtii umada la boobay xilliga la joogo weliba waxa la rabaa in la sii boobo xilliga aan joogno waa xilliga aan u baahnayn dad tiro badan oo
lambarkaas saddexaad aan u baahnayn oo wanaagoodu uu gaadho si ballaaran oo qiyaas aan lahayn aan tiro lahayn wanaagoodu uu gaadho basharka uu gaadho waa xilligii loo baahnaa dad tiro badan oo caynkaasa haddii la heli lahaa 20 qof oo caynkaasa 30 qof oo caynkaasa 50 qof oo caynkaasa 100 qof oo caynkaasoo iyagu iska badan oo reerku dadkoogii ka batay oo ficilidoodu ay butaacayso ay burqanayso haddii la helo wadanku hagaagi lahaa marka maanta lambarka koowaad baa inagu badan lambarka labaad baa ayaa ku sii xiga lambarka saddexaad baa inoogu yar ama ma bahayno ama waa 1 2 iyo 3 4 waana lambarku u baahan yahay wadanku maanta u baahan yahay waa la wada weeyaa waa la wada taahayaa waa la wada rafaadsan yahay lacag ma hayno aniga dukaankayga u kacay aniga taxigayga u kacay aniga baskayga u kacay aniga makhaayadayda u kacay aniga ganacsigayga baa kacay transiter baan waan kacay waa la wada ooyaa waan kacay laakiin waxa inagu yar cid oranaysa waan kacay anigu waan kacay laakiin waxaan diyaar u ahay dadkayga inaan samata bixiyo oo badbaadiyo ilaahay karti buu ii siiyay oo ummadan samata bixinayo waxaan ahay qof ballaaran cidii baa inagu yar وإبر وفركوتريس مركا إلهي جل وعلا قرآنك إلهي جل وعلا كلاسيفيكاسيون بكسمي حق وحقبت كمركا الأيودات وأمسا صدق لازو كريه قف فريدة أو بلا كرتية أو وحبلان أو إبر أو عليس كوا يدد كيسا لبا قف يسوون أنو ريركي بالكيران وانو هلا أني حاجة واسكو في عنها يوبت كيغنا الباب كانوا فرديها ويدمات وقالوا قالوا له بهاي ما ويسكو في عين لكن لما بانا qolada loo baahan yahay waayo waxa loo baahan yahay saacada aan joogno qolada saddexaad oo qoladii wadanka samata bixin lahayd wallahu ta'ala ala wa alam ilayhi al-marji' wal ma'ab sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in